Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabii ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Caadooyinka iyo dhaqanka guurka ee dalalka ayaa ah kuwo kala duwan, laakiinse arrimaha la xiriira guurka ee qowmiyadaha ku nool dalka Iiraan ayaa iyaguna ah kuwo aad u kala duwan, waxayna midaasi saameyn toos ah ku yeelatay dadka ku nool waddanka Iiraan shucuubtooda. haddaba maanta waxaan halkan ku baran doonnaa caadooyinka la yaabka leh ee guurka dadka reer Iiraan lahaayeen, qaarkoodna ilaa hadda ay leeyihiin. haddaba intaan u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar, gabaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya hele barnaamijyadeenna. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid. kudhufashada barkita ee Qaayin. magaalada Qaayin ee ku taalla koonfurta gobolka Kursaan ayaa waxaa caado u ah in dhalinyarada aan weli guursan lagu garaaco barkimo dhammaadka xafladda arooska, waxaana ku garaaca qofka markaasi guursanaya. guurka malabka ee Shiraas. marka loo fiiriyo magaalada Shiraas ayaa tii hore ka duwan. arooska inta aanu gelin guriga arooska wuxuu farihiisa ku qaadanayaa xoogaa malab ah, wuxuuna ku seerinayaa albaabka guriga, wuxuuna sidoo kale hoos marayaa kitaabka qur'aanka kariimka, wuxuuna lugtiisa ku dhufanayaa koobka buuxda caleenta sokorta cagaaran, waxayna daliil u tahay middaas barako iyo duco iyo nolol macaan. maqaska Turkmenchai. magaalada Turkmenchai markii mu'adinka ama qofka wax meherinayo uu wax nikaaxayo, dadka xafladda nikaaxa ka soo qayb galay looma ogola inay cuskadaan gidaarka. inta ay socoto hawsha nikaaxa waxaad arkaysaa 4 qof oo guriga ka taagan 4 jiho, iyaga oo wato maqasyo oo ay la macno tahay inay goonayaan carabyada iyo gacmaha xaasidiinta ka soo qayb galay xafladda. laanta geedka ee Jiilaan. gobolka Jiilaan ee dhaca badda Kasbiyaanka ayaa aroosadda laangeeda ka soo goosataa guriga waalidkeed, waxayna ku beeraysaa guriga lagu guursanayo. tuulooyinka qaar ka mid ah ayaa hooyada dhashay aroosadda waxay isku xiraysaa 2 digaag lugahood oo lab iyo dhadig ah, iyadoo ku xiraysa dun xariir ah oo midaba leh, waxayna horay ugu soo dhiibaysaa gabadheeda la guursanayo, waxayna ku sii daynaysaa guriga iyadoo ka furaysa dunta. kadib labada isguursatay ayaa ku wareegaya ceel biyood, iyagoo ku tuuraya lacag, iyagoona ka rajaynaya inay helaan khayr iyo barako. Loos iyo Jos ee magaalada Yazd. caadooyinka magaalada Yazd ee ku taalla bartamaha waddankaasi ayay gabdhaha horay u qaataan galab waliba oo jimco ah loos ama natmig oo ay Soomaalidu u taqaano jooska. waxay u ruqaasadaan dhanka minaaradda masaajidka, waxay halkaasi ku jebinayaan looska ama jooska inta ay ku sii socdaan dhalada minaaradda. haddii xoogaa loosa ama joosa u soo haraan, taasi waxay ka dhigan tahay in rajada arooskoodu uu soo dhow yahay. qufulka iyo furaha ee magaalada Tehraan. magaalada Tehraan haweeney waayeel ah ayaa aadaysa mid ka mid ah jidadka iyadoo sidata quful iyo fure. qofka ugu horreeya ee aragta oo jidka maraya ayay weydiinaysaa inuu furo qufulka, laakiin waxaa shardi ah inuu magaciisa ka bilaabmo Maxamed ama Cali. sidaasi ayuu ku furmayaa ama ku burayaa sixirka sida ay aaminsan yihiin. faraska iyo dadka bakhtariga. ragga bakhtariga ayaana guursan gabdha aanan qabiilkooda ahayn. qofkii ka guursadaa dibadda qabiilka waxaa loo yaqaanaa qofkii dibadda reerka ka guursaday. waxay kaloo yaqaaniin gabadha iyo wiilka in la isku daro markay dhashaan si loo adkeeyo xiriirka qabiilka iyo silsiladda joogtaynta qaraabanimo. xafladda arooskooda. arooska ayaa la saaraa faras, wuxuu helayaa cad yar oo maro ah oo ku xirnayd madaxa aroosadda, isagoo oo ay ku gadaaman yihiin fardo si uu u gaaro aroosadda. biyo kurusheynta ee magaalada Isfahaan.
caadooyinka kala duwan ee magaalada Isfahaan waxaa la isku xiraa timaha aroosadda iyo arooska oo lagu xiro dun xariir ah oo midaba leh, waxayna midaas la micno tahay guur waara. intaa kadib aroosadda iyo arooska ayaa isku dhaqaan lugahooda. biyihii lagu dhaqay lugahooda ayaa arooska ku firdhinaya qaybaha kala duwan ee guriga. arooska jasiiradda Qishim. dadka dega jasiiradda Qishim ayaa howlka arooska lagu qabanayo hab dhaqameedkooda ku qurxiya. kadib xafladda arooska iyo aroosadda ayaa ku noolaanaya guriga reerka gabadha ilaa ay ka iibsadaan guri ay iyagu leeyihiin. biyaha webiga ama baliga. dadka ku nool koonfurta Iiraan ayaa ku kulmaya agagaarka arooska maalinta ugu dambeysa ee xafladda arooska. waxay u kaxinayaan arooska meel webi ama balli ah oo ka baxsan magaalada ayna ku jiraan biyo. waxaana loo baahan yahay inuu dharkiisa ku beddesho meel u dhow biyaha, taasi ayaana ka dhigan daahirinta gelitaankiisa nolosha cusub. dhirta sokorta. gobollada qaar ka mid ah ee Iiraan ayaa aroosadda loogu xirayaa mara yar, kibista ama muufada iyo farmaajo, iyadoo ay ka dhigan tahay inay ka baxaydo guriga aabbaheed ee kibista iyo farmaajada. sidoo kale magaalooyinka qaar ayaa aroosadda guriga aabbaheed ka baxaysaa iyadoo wadata sokorta dhirta oo la micno ah diridda calaamad khayr iyo barako ee guriga arooska. sokorta madaxa lagu daadiyo. kadib munaasabadda meherka, 2 xabadood oo sokor qalalan ah ayaa la saarayaa madaxa arooska iyo aroosadda, taasi oo loogu rajaynayo inay isu macaanaato noloshooda. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media, adigoo subscribe na saaraya gambaleelkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan. mahadsanid.